أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله dhowr eray ayaan ka sheegayaa bi'ru al-khaatam nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam markuu go'aansaday inuu qoraallo u diro boqorada adduunka uuna ugu yeerayo islaamka waana sanadka 6 iyo 7 ee heshiiska al-Xudaybiya dabadiis waxaa lagu yiri inayan boqorada gaaladu aqbalayn qoraal aan xirnayn oo meesha baqshada laga xiro ayan shabad iyo xabag ku dhaganayn boqoradaas waxay ka baqayeen inay dad kale oo ama shacbigooda kamid ah ama shisheeyaba ah uu akhriyay isaga hortiis waxa warqada ku dhigan markaasuu nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu samaystay faragashiga ka samaysan qalin ama fidlo ayna ku dhigan tahay muhammadun rasuulullah shabadaas uu ku xiri jiray baqshadaha uu qoraalada ay ku jiraan qoraalada uu u diray boqorada nabiga sallallahu alayhi wasallam dabadiis waxa faragashigaas farta gashin jiray abubakar as-siddiq dabadiisna umar bin al-khattab dabadiisna uthman bin affan uthman oo ceelkaas biiru aris kor fadhiya lugihiisuna ku sii deysan yihiin ayuu faragashigu inta fartiisa ka siibtay ceelka ku dhaxdhacay ceelka laga dhex raadiyay ilaa heer biyihii oo dhan laga dhuray waase laga waayay ilaa maantana waa ku maqan yahay boqorada ala sacuud ayaa ceelkaas duugay oo dhulka la simay waxaad u jeedaa shariif calawi cabdiraxmaan al-mixdaar oo taaganbartuu ceelkaasi ku yiilay habeenka jimce 2 shawaal 1442 hijriga 14 maajo 21 miilaadiga kadib markaan salaada cisho ku tukanay masjid quba oo ceelkaasi ku yaalo